aan ku bilownay xanuunka coronavirus ayaa meelo badan oo kamid ah dunida ku faafaya iyadoo sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo ama uu haleelayo. Cabdilaahi Xaashi Aadan waa nin Soomaali ah oo ku nool dalka Norway kaasi oo ku dhacay xanuunkan coronavirus waxaana sida uu xanuunku u dhacay iyo dareenkiisa iyo waliba xaaladiisu sida ay haatan tahay uga warramay wariyahayaga Jacfar Kuukay. taariikhdu kolkay ahayd 28 bishii February ayaa waxaan u safray wadanka la yiraahdo Sharmanka. Sida caadadu tahay waxaan raacay doon asoo adeeganeen xaaska iyo gabar yar oo aan dhalay ayaan wada soconay, laakiin waagi kulku bariyay shaqaan lahaa. Aroortii kolkaas la soo tukaday shaqadii waan aadi waayay. Waxaan dareemay xanuun jirka ah. Marka waxay tahay aan garan waayay xanuunku waliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha iyo xanuunay cunahana aad buu xanuunayay. madax xanuun aad saayid waan u yahay qandhana way haysaa matagna way haysaa shakigana way ugu jiray. waxaan siri baalku u jooga magaalada joogtiin dadku dhan way u yihiin inuu magaalada joogo. marka waxaan siri waxba ha degdegin kuwii shaqada message u dir waan sida shaqada kuma jeegtay message baan u qoray. markaas uu ii soo qoray wuxuu yiri maya guriga joog xanuunkii uu soo batay waana qarqaray anoo markaa guday maalin way tahay bistaan ku dhex jira waana sii qarqaray anigu dhan waxaan moodaa inaan dhaxamoonay -10 degree inaan ku dhex jiraad moodaysa ilkaas ku telefoonaay. waa soo koobaynaa dhaqaatiirtaadii baad la xiriirtay oo aad la hadashay markii la xaqiijiyay inaad qabto xanuunkan wixii ka dambeeyay adigu maxaad dareentay markaa cabsi xoog ma ku soo wajahday ma wax iska caadi ah baad u arkaysay? wallahi horta qof mu'min ah oo ilaahay rumaysan waan ahay waxaan aaminsanahay xadiiskii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wixii kugu dhacay macnaha kuma gafilahan qasab kugu dhici lahaa. way maxaa isi soo taray marka inta wixii ka dambeeyay maxaa soo kordhay oo ku soo kordhay xaaladaada? wallahi xaaladdu waxa ku soo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noolaa nin kulli 40 kan hadda ku dhowdhowahay weligay xanuun noocan ma arag. malaria way igu dhacday afrikaan oo joogo pneumonia xanuunada la yiraahdo way igu dhaceen xanuuno fara badan waan arkay oo kala duwan cagaarshowga kan la yiraahdo laakiin xanuunkan oo kale ma arag qandhadiisa lamida ma arag. sababta tahay aniga oo dhan waan gariiray waan istaagi waayay waana dhaxan baan dareemayay waana adduunka oo dhan baan nooc kale la noqday dhadhankii iga xumaaday xumad aad u fara badan dhididna way soo waana dhaxmoonaya. marka iyada xanuunku marka phase 1 buu ku jiray kulli jirka la dagaalamayay laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd. markaas dhakhtarku wuxuu igu la taliyay inaan cuno paracetamol iyo panadol qofkii wuxuu ku loo yaqaano paracetamolka. marka waxaan cunay 1 gram kiniini ah macna 500 miligram iyo 500 miligram markaas xogaa yar xumad jirin yar buu isin jiray xogaa ku nafisay macnaha ma fahanteen. ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni miyaa lagu geliyay mise waxa lagu yiri gurigaaga isku karantiil? guriga isku karantiil lagu yiri xaafad waraaq bay laanta caafimaadka ii soo dirtay waxa lagu yiri xaaladaada waan la soconaa kama soo bixi kartid gurigaaga 14 maalmood. waa gartay marka dadka guriga kugula noolna waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yar oo aad dhashay ay joogto. xaaskuna uu ku dhacay kulay uu ku dhacay laakiin gabadha yarta dhakhtarku waan weydiiyay wuxuu yiri ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay ilaa 9 jir. marka iyada waxba kama dareemin ilaa ay iyaro dufa mooyay way iska ciyaaraysaa sidii ay u ciyaaraysaa bay ciyaaraysaa waxay leedahay gurigan maxaa noogu xidheen oo waan bixi lahayn. Soomaalida marka loo sheego xanuunkan ama ay idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhageystaan ama ka daawadaan waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda anaga aan joogno kala dadkii aad bay u baqayaan maadaama adigu aad wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhageysanaya waxaanay maxay yihiin? horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada iyo hadii loo fiiriyo xanuunada hadda kale ka sheekeynaysid yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan inkasta geeridu ilaahay keenay laakiin sabab uga dhiga xanuunkan xanuunadaas kulli kama duwano cabsida iyo xogaa meediyaga ay dadku cabsida geliyeen dadku ma garatay xanuunada hadda Afrika ku dhaca daacunka oo kale uu la mid yahay ma garatay dadku Soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan kula talin lahaa in xanuunkan uu igu dhacay haddana waan ka soo kabsaday walillahi alhamdu wal minna. hadda xanuunka dareento inuu ku haayo xogaa hergibeysan tahay dareento lafa inuu ku xanuun hadda wixii aan soo sheegay gurigaaga joog dadka ha haligin masaajidka xataa ha tagin dadka ha galabsanin guriga 14 maalmood ani hadda waxaan qiyaasay waxaan arkay 7 maalmood markay ii dhamaatay yaan ka soo fiicnaaday. marka dhaqaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyeen in aad ka bogsatay mise wali waxba kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa? karantiilka waan ku jiraa dhakhtarku wuxuu igu yiri 7 maalmood hore uu igu yiri maalintii kood wuxuu yiri la 7 maalmood buu ku hayni qandhada ku haynaysaa kolba panadolka cun
7 maalmood ka dhamaad maalinta 8aad way soo yaraanaysaa laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 14 maalmood ay dhamaato marka 14ka maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo kaliya uun paracetamolkaas ama qandhajabiyahaas bay ku koobnaayeen wax kale dhaqaatiirtu kumaanay qorin may sababtay dhakhtarku wuxuu igu yiri anigu lafteedu waxaan u maleeynaa in lagu daaweyn karo antibiotic wuxuu igu yiri si fiican buu igu sharxay wuxuu yiri antibiotic waxa lagu daaweeyaa cudurka markuu bacteria yahay cudurkan waa virus kuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo sameeyo talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotic marka Soomaali meelkasta ay joogto dad Soomaaliya joogto walaalayaal inta aad tagto meeshii la dhigi jiray farmasiga hadii antibiotic si aan ku daaweeyo cudurkan antibiotic kuma daawoobayso wax jirkaaga ha kharibin waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto paracetamolna aad way Abdullahi ugu dambeyntii dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sanbabada buu u degaa mararka qaar neef mareenka buu xanuunkan si toos ugu dhacaa adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun dareentay niyo maalintii koowaad waan dareemay in yar oo qufac ah iyo maxaan ku yiraahdaa sanbabada oo xoogaa aan moodo neefta inay igu dhigayso waan dareemay hadalkaasina waxa uu dambeeyay Cabdullaahi Xaashi Aadan oo ah wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway oo xanuunka coronavirus ku dhacay ninkana ka soo ladnaanaya Jaafar Kukay ayuu ramay halka dhageystayaal oo la socotaana waa VOA weli wararka coronavirus